kulanti waxaan u wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay sida aynu wada ogsoonnahay 24 bishani Juulaay waxaa ka dhacay magaalada Garbaciise ee galbeedka gobolka City weerar waxashnimo ah oo maleeshiyaadka qowmiyadda Canfarta qaybahooda kala duwan ay ku soo qaadeen magaaladaasi Garbaciise haddaba xasuuqaasi oo khasaare ba'an oo naf iyo maalba leh ayaa 3 maalmood kadib ay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalidu waxa ay ka soo saartay warmurtiyeed ay kaga hadlayso in xasuuqaasi arxan darrada ah ee lagula kacay shacabka Soomaaliyeed ee birimageydada ah ee aanay jirin wax dambi ah ama wax dhibaato ah oo ay geysteen xukuumadda deegaanka Soomaalida oo in muddo aba ka warwareegaysay ka hadalka iyo waliba tacsidii ay ka diri lahayd dadkii lagu xasuuqay magaaladaasi Garbaciise iyo guud ahaanba deegaamada ku xeeran oo wali xasuuqoodu uu socdo uunana istaagin suuragalna aysan ahayn inuu istaago tan iyo inta tallaabo rasmi ah oo cad oo dawliga la qaadayo ayaa xukuumaddu waxa ay ku dhiiratay in ay ka hadasho xasuuqaasi dhibaatadii ka dhalatay ciddii ka dambeysay oo ay si cad u cambaaraysay markii ugu horeysayna waxa xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay si cad u sheegtay in ciidamada militariga dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay qayb ku leeyihiin amaba ayaga oo dhowraya oo dadkii ay arkayaan hortooda lagu leynayo wax tallaabo ana aysan qaadaynin runtii waa arrin ku dhiirasho mudan waana arrin ay tahay in la bogaadiyo laguna dhiirigeliyo laguna soo dhaweeyo hoggaaminta deegaanka Soomaalidu tallaabadaasi ay qaadeen ee ay ku dhiiradeen amaba ay kaga hadleen magaalada Garbaciise ee galbeedka gobolka City xasuuqii fureynimada ahaa ee maleeshiyaadka Canfartu ay ka geysteen inkasta oo uu soo daahay haddana waxaa soo dhaweyn mudan amaba ay tahay in runtii la qiro in ay soo qaateen markii ugu horeysay amaba markii ugu horeysay ay xukuumaddu ay meeshii dhibaatadu ay ka taagneyd ay ka hadleen taasi oo muujinaysa in ay fahansan yihiin amaba ay dareensan yihiin dhibaatada meesha ka jirta iyo cidda ka dambaysa amaba mas'uuliyadda cidda iskale haddaba warmurtiyeedkaasi ay soo saartay xukuumadda deegaanka Soomaalida ee ay kaga hadashay xaaladii banayd ama xandarrada ahayd ee kooxda maamulka Canfartu uu ku geystay amaba uu ka geystay deegaanka Soomaalida ayaan jeclahay bal marka hore in aan idin dulmaro qaabka uu u dhignaa amaba warmurtiyeedkaasi ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ugu dhiiratay ee ay ku baahisay warbaahinteeda warmurtiyeedkaasina waxa uu u qornaa sidan xukuumadda deegaanka Soomaalidu waxay si adag u dhaleecaynaysaa xasuuqa maamulka Canfartu u geysteen shacabka maatida ah ee magaalada Garbaciise sabtidii 24 bisha Juulaay 2021 ee taariikhda miilaadiga amaba 17 bisha 11 ee taariikhda Itoobiya oo 13 iyo wax meelahaas maraysa iyada oo haddaba la sii wado warmurtiyeedka ayaa waxa lagu yiri iyada oo heshiiskii ugu dambeeyay ee lagu gaaray Addis Ababa uu ahaa in amnigooda ay sugaan waa shacabka ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City ee hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa waxa muuqanaysa in gebi ahaanba hawshaasi la dayacay ama ku talagal ha ahaato amaba kama ha u dhacdo kas iyo kama miday dooniba ha u dhacdo inta ana ugu daray laakiin waa يعني federaalka ayaa lagu soo koobay warmurtiyeedkani ka soo baxay xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ay soo saartay amaba uu soo saaray xafiiska hoggaanka warfaafinta deegaanka Soomaalida oo sii socda ayaa waxa lagu yiri waa markii labaad ee ma aha markii koobaad ee shacab maati ah si bareed ah loogu horlaayo hay'adaha amniga ee dawladda federaalka oo mas'uuliyadda ilaalinta shacabkaasi iyagu qaatay waxa horey loo xasuuqay loona barakiciyay shacabka magaalada Cadeytu ee deegaanka Soomaalida ayaa lagu yiri warmurtiyeedka
isaga oo sii socda warmurtiyeedkani ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ka soo saartay xasuuqii fulaynimada ahaa ee maamulka Canfarta ayaa waxa ay hanjabaad iyo weliba go'aan qaadasho ay ku sheegtay qodobada soo socda xukuumadda deegaanka Soomaalidu waxa ay tacsi u diraysaa baa lagu yiri dhammaanba shacabka deegaanka Soomaalida gaar ahaan ehelada iyo qaraabada shacabkii lagu laayay magaalada Garbaciise xukuumaddu waxa ay xaqiijinaysaa in ay diyaar u tahay in ay qaadato mas'uuliyadda ka saaran difaaca shacabka galbeedka gobolka City ee dhibaatooyinka isdaba joogga ah la soo darseen tan iyo intii ay ka gadoodeen go'aankii khaldanaa ee xoogga lagu hoosgeeyey maamulka Canfarta xukuumadda deegaanka Soomaalida 26 bisha July 2021 xafiiska warfaafinta DDS ayaa lagu soo afjaray warmurtiyeedkaasi ka soo baxay xukuumadda deegaanka Soomaalida ee ay kaga hadashay amaba ay ku soo qaadatay in hay'adaha ammaanka dawladda federaalka dalka Itoobiya ay iyagu mas'uuliyadda leeyihiin haddaba marka la fiiriyo qaabka ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu oga hadashay ama warmurtiyeedkani ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee dhaliil loogu jeediyo hay'adaha ammaanka dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya balse xukuumaddu ha ku dhiiratay ee waxa ay ku dhici weyday si dhab ah inay u sheegto meesha ay sartu ka qurunsan tahay oo ah ciidamada militariga dawladda federaalka ah ciidamada federal booliiska dawladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo ciidanka nabad sugidda lagu magacaabo iyo sirdoonka ee dalka Itoobiya kuwaasi oo ah kuwa qaadanaya horeyna u qaatay go'aamada lagu barakicinayo laguna xasuuqayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka City waxa hubaal ah inaanay jirin go'aan Canfareed ee uu yahay go'aankani go'aan dawliya waxa kale oo xaqiiq ah in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay wax badan qarinayso ayna jiraan xaqiiqooyin ay xukuumaddu ogtahay balse ayna shacabka la wadaagin sidoo kalena aysan weli diyaar u ahayn inay shacabka la wadaagto sidaas daraadeed annaga oo uga mahad celinayna xukuumadda deegaanka Soomaalida go'aanka ku dhiirashada mudan ee ay kaga hadashay in hay'adaha ammaanka maamulka Addis Ababa ay dayaceen kaalintoodii ahayd ilaalinta amniga iyo nolosha bulshada ku dhaqan galbeedka gobolka City haddana waxa hubaal ah oo xaqiiq ah inaanay ku filayn intaasi ee ay tahay xukuumadda deegaanka Soomaalidu inay qaado tallaabo dhab ah oo shacabka lagu difaacayo waxa kale oo xukuumadda looga baahan yahay in ay qaado tallaabo argudasho ah oo ay kaga argudanayso maamulka Canfarta sababtoo ah ma aha waxaan sameeyay dad shacaba ciidamada liyu booliiska dawladda deegaanka Canfarta oo ku hubaysan gaadiid dagaal oo gaaraya 70 gaari ayaa magaalada Garbaciise iyo nawaaxigeeda qabsaday ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiyana gacan ayay ku siiyeen sidaas daraadeed waa in tallaabada koobaad ee la qaadayo ay noqoto in la isku wareysto magaalada Samaara ee caasimadda maamulka Canfarta wixii intaasi ka sokeeya waa hadal malagii galay iyo qowda maqashii waxnaha u qaban waa hubaal gadhba la tusaa Canfar ma aha shacabkeedii waxa dhibaatada geysanaya ma aha maleeshiyaad ma aha jabhad waa ciidanka dawladda deegaanka Canfarta oo wata ama lugaha ku wata boqolaal kala duwan oo maleeshiyaad ah kuwaasi oo in dhawaalaba dhibaatooyin ku hayay shacabka ku dhaqan galbeedka gobolka City sidaas daraadeed mar kale ayaan xukuumadda uga mahad celinaynaa tallaabada wanaagsan ee ku dhiirashada ah ee ay qaaday waxaanan ugu baaqaynaa xukuumadda deegaanka Soomaalida in dib loo soo celiyo ciidamada deegaanka Soomaalida ee laga howlgeliyay deegaanka Axmaarada mar haddii dadkeenni dayacan yahay mar haddii dhiiggii shacabkeennu uu daadanayo mar haddii aynu ogsoonahay weli meydku inuu daadsan yahay magaalada Garbaciise bartankeeda weliba boqolaal isagoo ah meydka hooyooyinka waxyaabaha aan ka qaracmay
la ii sheegay ee aan ogahay baa waxaa ka mid a hooyo meyda oo dhimatay maalinkii 24 bisha in maalinkii shalay ahaa ilmihii ay ku waday dhabarka uu naaskeeda nuugayay iyadoo meyd ah canfartuna ay sii dhaafayso oo ay soo dhaafayso sidaas daraaddeed waxaan leenahay xukuumadda deegaanka Soomaalidu tallaabada ay qaaday ee ay ku dhiiratay waa in ay sii xoojisaa oo ay isku daydaa kow tallaabo argudasho in canfar laga qaado oo loo argudo shacabka Soomaaliyeed ee weli meydkoodu daadsan yahay waa midda labaad in sida ugu dhaqsaha badan dambiilayaashii xasuuqa geystay ilaa maxkamad laga soo taagayo xukuumaddu ayna maaragtay nasanin annaguna waxaan u ballan qaadaynaa in aan garab istaagno ugu hiilino codkanaga mar walba aan ku garab istaagno xukuumadda deegaanka Soomaalida inta ay danaha shacabka Soomaaliyeed u taagan tahay fulintooda iyo wax ka qabashadooda sidoo kale shacabka deegaanka Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa in ay mudaharaad sameeyaan meel walba oo ay joogaan oo deegaanka Soomaalida kamida dhibaatada iyo xasuuqa ku dhacay Garbaaciise berri jigjiga ayuu sugayaa wuxuu sugayaa qabri bayax wuxuu sugayaa dhagax buur wuxuu sugayaa shaygoosh wuxuu sugayaa qabri daahar wuxuu sugayaa dhanaan wuxuu sugayaa goday wuxuu sugayaa afdheer oo dhan wuxuu sugayaa liibaan daawo iyo dhammaanba goobaha kale ee deegaanka Soomaalida sidaas daraaddeed jiid lahaye jiriidka kama qoslo ayay Soomaalidu tidhaahdaa waa in shacabka deegaanka Soomaalidu ay dhiig iska baaraan ilaa iyo hadda waxaan arkaa oo kaliya shacabka gobolka Shiniile ama City maxaa ku dhacay Soomaalidii kale dadka la laynayo miyayna Soomaali ahayn miyayna dad muwaadiniin deegaanka Soomaalida u dhashay ahayn miyayna isku dhiig ahayn miyayna isku diin ahayn miyayna dhalasho iyo dhaqan wadaagin say ku dhacday hooyooyinka Soomaaliyeed ee meydkoodu daadsan yahay maalinkii afraad in laga dhiidhii waayo oo la yiraahdo maxaan ku idhaahdaa isgaabiya waxaan leeyahay shacabka guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan kuwa deegaanka Soomaalida qurbaha kuwa ku nool kuwa jooga deegaanka gudihiisa waa codka ugu dheer waxaan dhihi lahaa isu soo baxa muujiya dareenkiina muujiya cadhadiina muujiya xanuunkiina muujiya in aad hooyooyinka iyo caruurta aan waxba galabsanin ee lagu laayay Garbaaciise ee waliba meydkoodii uu daadsan yahay iyo kuwa hadda yaa Allahu lagaga soo bixiyay inay dhiigiin yihiin inay hilbihiin yihiin in aad idinka waxa maanta iyaga ku dhacay berri ay idin sugayso bawdiyo rageed maalinba mid baa qaawan baa la yidhi haddaad maanta ka aamustaan 27 sano ayaa waxaa laga aamusnaa deegaanka qayb ka mida maanta wixii loogaaba dhacay maantana waxaan ka aamusnaa deegaanka qayb ka mida marka maalin walba markii qolo la saaran yahay qolada kale waa inay madaxa laalaadiso waxaan dhihi lahaa anigu ruuxaas iska daaya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Jigjiga iyaga xaruntii deegaanka ah iyaga xaruntii deegaanka Soomaalida jooga waxaan dhihi lahaa warkaca war dhiiga walaalihiin war hooyooyinka iyo waalidiinta iyo dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ku dandaraysan ee ku rafaadsan cidda ay sugayaan cid kale ma aha waa idinka wallahi haddaad u hiilin weydaan idinkana berri baan laydin hiilinayn sidaa daraaddeed maalinba gobolka la qasho waxaan jeclaan lahaa mar kale in aan xukuumadda ku dhiirigelino ku guubaabino kuna tirsiisino in tallaabo geesinimo la ay qaado waa in hadalka ka soo yeerayo xukuumaddu ma aha inaan leeyahay wax dulma ma aha inaan leeyahay dhiig islaameed daadiya ma aha in aan leeyahay dhibaato geysta aan maaragtay leedin geysanin intii leedin geystay waa inaad geysataan shacabka galbeedka gobolka City waxaa xasuuqay ciidamada dawladda deegaanka Canfarta ciidamada dawladda deegaanka Canfarta waxa la mid ah ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida waa inay qaadaan tallaabo geesinimo leh oo lagu muujinayo ciidankaasi ficilkii ay geysteen ee foosha xumaa inuu rag ka dambeeyo waa in gabdhaha Soomaaliyeed laga baqo waa in gabdhaha Soomaaliyeed laga cabsado waa in dhulka Soomaaliyeed laga baqo ciidankaas haddii aanay sidaa yeelaynin hala kala diro muhiimadu waa inta waxay qabanayaan male
beesha ciisana waxaan dhihi lahaa haddaad hiil weydaan ka go'a deegaanka soomaalida maxaa laydiin maalin walba macalaacal baad ku jiraysaan maalin walba ma waxaad eedayn baad ku jiraysaan maalin walba ma cambaarayn baad canfarta ku biira raaca canfar ama canfar raaca ama oromo raaca ama meel kale raaca muhiimaddu waa intaa weeyaan marka xaqiiqdana haddii laga leexdo warka haddaan dhabtiisa loo tegin waxaa weeye waxaa loo tegayaa wax ka xun canfar oo aynu ognahay waxa ay tahay oo qayb ka mida beesha ciise ay ka adag tahay weligeedna ka adkayd nolosheediina aan dhul ciise hunguri ka gelin ayaa waxay ku maaragtahay to maanta ka faa'iidaysanayaan shaatiga Addis Ababa waxaan arkaa kuwa canfar oo meeshan ka hadlaya waa waqti baad haysataan fursad baad haysataan runtii fursad baad haysataan laakiin fursadda ha iska dayicina aan idin dhihi lahaa ha iska dayicina fursadda aad maanta haysataan waa inaad ka faa'iidaysataan oo waxaad dili kartaan aad dishaan oo wixii aad geysan kartaan aad geysataan marka shacabka beesha ciise waxaan leeyahay haddaad weydaan walaal idin hiiliyo dawlad idin hiilisa isku tashada awal horeba idinkaa isku filaa idinkaa meel maxaan ku idhahdaa to deganaa cid idin hiilinaysay ma jirto waad maxaan ku cadowgiinana waad iska celin jirteen maanta waa laydin hagraday idinkuna dad aan waxba idin taraynin baad hiil bideen marka waxaan idin leeyahay mar kaste garabkiinaan taaganahay insha allahu tacaala haddaan nahay shacabka soomaaliyeed akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo intaasi ayaan jeclahay in aan ku soo afjaro kelmadahaasi kooban ee ka dhashay bayaankii xukuumadda deegaanka soomaalidu ay ka soo saartay xasuuqii arxandarrada ahaa ee magaalada garbaciise ee tan iyo is arag maqal dambe waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlaya oo idin leh nabaday iyo